قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر. markaynu fiirsano qisada dilqarnayn waxaynu ka dhaxarkaynaa ilaahay oo la inna makanna lahu fil ard wa aataynaahu min kulli shay'in sababa. dhulkaanu makansiinay baa la yidhi, dhulka ayaa gacanta loo geliyey, shay walbana sabab baa loo siiyey, isna sababtii buu raacay. kow waxaa rabbi tilmaamayaa tiknolojigii waagaa yaallay inuu hogaaminayey. xaggee lagu tilmaamayaa? qur-aanku wuxuu ka warramayaa inuu dilqarnayn galbeed iyo qoraxdu xaggay ka dhacdo qabtay, soo noqday, bari iyo xaggay ka dhacday qabtay, ka noqday, qayb waqooyi oo kale ay culimmadu ku sheegaan uu u kacay, meel laba buurood ah, qolo meel deggan oo dhiba haysato oo koox yaajuuj iyo maajuuja la yidhahdo ay weeraraan oo nafta isugu keeneen inuu tegey. dabeetana waxay weydiisteen aanu kharash kuu yaalle yaajuuj iyo wamaajuuj nooga samee teedna kala xidha. waa ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ka warramaya inuu markaasi yidhi aatuunii zubra alxadiid xataa ida saawaa bayna sadafayni qaala انfukuu xataa ida jacalahu naaran qaala aatunii ufriq calayhi qitra fama اstaطaacuu an yadharuuh wama اstaطaacuu lahu naqba. waxaa rabbi leeyahay radmi buu sameeyey. radmiga kani waa derbi. derbigan qur-aanku wuxuu ka tilmaamayaa siduu sameeyey. laba buurood dhexdood ayuu rabaa inuu teed ka dhiso. teedka kan taariikhda intaynu garanayna waa teedadkii ugu horreeyey xadiid lagu isticmaalo. dunidaynu maanta joognaa 5 dabaq wax ka badan lama dhisi jirin, iyo 4 dabaq iyo meelahaasi sidan yurubta hore qadiimkaa ku aragteen oo dhan, intii aan la baranin birta iyo sibirka in la isku daro, intaan la baranin birta in loo isticmaali karo dhismaha. technologyga dunidu wuxuu ahaa dhagaxan haddii la wado ama jaajuurka la wado markuu xag gaadho inuu soo dumayo. wiilkii keenay birta tan iyo sida ingiriiska joogay waxoogaaga intuu walwalaaqay markii dambe New York tegey. New York daarigii ugu horreeyay dhaadheeraaya la dhisay 20 dabaq bay ahayd. mucjisay ahayd in 20 dabaq la dhiso. dowladoo dhan baa u daawasho tegaysay New York 20 dabaq laga dhisay. 20kaa dabaq ninkii ku guulaystay wuxuu keenay technology ah in birta sulb laga dhigi karo, stiilinta laga dhigi karo, in dhismaa loo isticmaali karo. qur-aanku wuxuu ka warramayaa dulqarnayn technologyga ah derbi in la dhiso iyadoo bir la adeegsanayo. dabeetana laba buurood dhexdood buu wuxuu samaynayaa derbu ka dhisaya. derbigaasi wuxuu yidhi waxay keentaan zubra alxadiid, birtoo la googooyey ii keena. birtiiba meesha qaabkii injineerinku uu ogolaa markaa laysu saaray, kadibna dab buu ku shiday. birtii markay kululaatay caddaatay kadib buu wuxuu keenay qatra ama nuxaas buu ku shubay. birta adkaanshiyaheedu inta badan waxay ku xidhan tahay materialka lagu walaaqo marar badan, ama carbon ha noqdo, neclan ha noqdo, waxyaabaha kan sida laysugu walaaqo. wuxuu sameeyey derbi biro googo-an ah oo dabeetana la gubay oo dabeetana lagu shubay nuxaas oo kadibna sisib noqday. rabbi wuxuu ku sifaynayaa derbigan 2 shay. marka hore waa meel aan la kori karin oo sisib ah, very smooth, waa meel aan qaab loo fuulo lahayn oo dheer. marka labaadna waxaa la yidhi naqbigu kama suurtagalaha, waa bir la adkeeyey oo aan maxay wax lagu direelgareeyo aan loo haynin ama qaab loo galooliyo, markaa lamana kori karo, lamana galoolin karo. qur-aanku tilmaamaya idan waxay tilmaamaysaa dilqarnaynkii dunida sida tan u maray inuu wuxuu watay cilmi iyo technology ay ka mid ahayd.